hay'adda alnajax oo inta badan ka shaqeysa howlaha samafalka isla markaana deeqo kala duwan soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Garadag ayaa deeq maryaa soo gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku jira xeryaha laga sameeyay kalaksharka Uguri iyo deeqdan maryaha oo ay ka faa'iideysan ka badan 800 qoys isla markaana isugu jira dad waayeel iyo carruur ayaa waxa uu wareynta ka warbixiyay Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda alnajax isla markaana uu mahadceliyay maamulka degmada Garadag iyo guddida abaaraha sida agarlaanta ay ula shaqeeyeen wuxuuna yiri sida tan sida maaragtay aan hadda ka hor nagu aragteen halkan wax ku qaybinay raashin anagu waxaan nahay muassasatu najaax al-khayriya dhowr meelood oo gobolka Sanaag ka tirsan ayaan raashin ku qaybinay kadalika saraarna gobolka Sanaag waan ku qaybinay sool baan ku qaybinay waxaan mar kale maanta qaybinaynaa dhar مثلا waxaan siinaynaa dumarka jalbaab googarad درع وكذلك هبلها يرينا waxaan siinayna wax weeyaan dharkii maaragtay dhar isku joogan siinayna inamada sidaas oo kale yaryar dhar isku jooga kadalika raga waaweyna waxaan siinayna macawisyo iyo shaarad markii aan aragnay runtii dadka baahidoodu inay badan tahay dhinac walbana baahidu ay ka haysato hadii ay dharkii tahay hadii cuntadii ay tahay biyo ay tahay ayaan marka waxaan isla bal wixii marka heli kartaan qayb walba wixii laga qari karo saasan marka u soo noqonay gudoomiyaha guddiga abaaraha ahna maayirka degmada Garadag Mudane Faarax Aadan Ciise oo isagu dhexda u xidhay isla markaana geed dheer iyo geed gaaban baa u fuulay habeen iyo dharaan gucli orod ugu jira sidii gabdho iyo gasin ugu heli lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen ku nool deegaanada hoostaga degmada Garadag ayaa isagu u mahadceliyay hay'adda alnajax النجاح فاونديشن فدغود yahay magaalada Hargeysa saakum Allah khair baan leenahay mar horena way soo gaarsiiyeen raashin sidoo kale imikana waxa weeye markay baahida arkeen waxay ka soo qayb qaateen hadana dhinacii ma garanaysaa dharka dadka aad arkaysan wadadkii ay xoolii ka baxeen ee barakacayaasha ahaa oo runtii goobo badan oo degmada kamid ah ka tirsan weeyaan oo degan marka halkan waa kamid goobaha kale waxaan rajaynaynaa insha Allah taala weelo meelo kale oo degmadana waan gaarsiin doonaa insha Allah mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa guddiga abaaraha iyo hay'adda Najaax Foundation sida wanaagsan ee dadaalka walaalnimada leh ee ay ma garanaysaa markii ay arkeen baahida ay nooga soo jawaabaan jazaakum Allah khair baan leenahay baaqna waa u diraynaa mar kale dhammaan ummadda muslimiinta inay sidaas oo kale ma garanaysaa walaalahooda baahan inay u soo taraan runtiina xaaladdu sidii hore way ka duwan tahay oo roobkii wali saan uma diin waxa weeye laba kacdayn bad moodana ku jirto marka waxaan leenahay hal soo dadaalo hay'adda alnajax inta badan ka shaqeysa howlaha samafalka isla markaana taakulayso dadka ay abaaruhu saameeyeen ayay deeqo kala duwan soo gaarsiisay deegaanada hoostaga degmada Garadag waa madar sayre warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag